waa run owlaadda alla ayaa baxsha. lamaanayaasha kuwooda wada nool waxa ugu horreeya oo ay filanayaan waxay tahay siday ku heli lahaayeen owlaad. lamaano wada nool muddo ku siman 9 sannadood, laakiinse muddadaasi ma aysan helin wax owlaada oo ay wada joogeen. balse qof waliba waxa uu ahaa ruux qanacsan, qadarta rabbina ku qanacsan. ducada mar waliba waxay u ahayd joogto, inay isku farxaan, wada joogaan, ma noqon mid hal maalin ay ka niyijabaan ama mugdi ay geliyaan. qof kastana wuxuu dareensanaa in maalin uun ay heli doonaan owlaad wanaagsan. hadiyadaha rabbi u baxshana oo owlaadda qayb ay ka yihiin ay soo gaari doonaan. rajadooda oo u ahayd mid joogta iyo farxaddooda u ahayd mid sarreysa weli waa kuwo wada jira. laakiinse haweeneyda waxay qaado uur muddo 6 jeer ah. dhammaan 6daasna caloosha ayay ku dilmeen carruurta. 5tii ugu horreysa uurka ay qaadaysa haweeneydaasi bilaha 1 iyo 2 ayay carruurta caloosha ku dilmayeen, halka cunugii ugu dambeeyay 6aadna uurka hooyada uu ku dilmay markii uu marayay bisha 8aad oo maalmay u raaceen. balse qoyskan weli waa kuwa dareemaya deganaan badan. hal maalinna ma aysan ku fikirin inay kala tagaan ama ay rajo dhigaan. qoyskan hadda haweeneyda waxay leedahay uur, waxaanay rajeynayaan in owlaad saalix ay helaan. fariintan waxaa boggiisa facebooka ku baahiyey walaal diini, waxaana uu yidhi waxay la soo wadaaga walaal dareemaya murugo badan, culays badan oo la xiriira in uur hadda xaaskiisa u leedahay, laakiinse uu ka murugaysan yahay in cunuga calooshaas ku jira uu dilmo sida ilmihii hore oo kale. waxaana bulshada Soomaaliyeed uu ka codsaday walaalkaasi in loo soo duceeyo in Ilaahay hooyadaasi cunuga caloosha ay ku sido uu noqdo mid dunidan si nabada ku yimaada, isla markaana 9 sano kadib ay arkaan owlaaddii ugu horreysay oo ishooda ku dhacda. alle waa mid naxariis badan. addoommadiisa mararka qaarna oo owlaadda ay ka soo daahdo waxaa laga yaabaa inay noqdaan kuwa lagu imtixaamayo sabarkooda. waxaan u rajaynaynaa lamaanahan in Ilaahay uu haleeshiyo owlaaddoodii ugu horreysay si indhaha ay qac ugu siiyaan. maxaa yeelay waxaa laga yaabaa ducadaada in adigaba u noqoto mid Alle ugu aqbalo. ee aan u wada duceyno lamaanahan. ku xirnow mar waliba Sharmaarka Media.